هلا السلام عليكم أصحاب الجنة كيف حرنا أصحابتي سيتين سما في حندين سيكو بريدين سيكو هرقشين وهذه سلام يا أمريكا استاجوكتان مالنت هيدين وعناتو هبينك هيدين وعناتو كسو دوادا جنة كيغا سومالي باربي هدا جنة كعصبتو حكا عدسانة يا سبسكرايب وسينا يدهدد لايك and share هدا نقصو نقونيسي سولابشو معان we love you very much اسكو سولابشو معان I hope أمريكا استاجوكتان نعاف ما قبتان أنا فرح سنتهين أصحابته maanta waxaa rabay maxallaha subax salaadeen noota shaqaawsi carreen marka waxaa rabay video yar quick inaan sameeyo videogan waxaa waa arin iga nixisay family Soomaali ee ku dhacday oo tragic ah subhanallah waxyaalaha tragic ilaahay naga koriyo this is the time dadka aan dhoo Soomaalida waxay u baahan yihiin counselor ama maxallaha therapy ama maxallaha dad maskaxdooda la hadlo because maxallaha dadka Soomaalida badanaa as we can see this more and more Somali people oo maskaxiyan xanuunsana adduunyada ku soo badanayo as we have social media hadda everything awal ma la ogaan jiray waxyaalaha familiyada iyo qoysasku wada dhaco laakiin hadda social media imaado oo 1 minute buu ogaanaysaa wax dhacay marka maanta waxaa rabinaa ka hadlo hooyo Soomaaliyeed aabba Soomaaliyeed oo maxallahay hargeysa isku gubay maxallahay oo geeriyooda Allah u naxariisto qisadan waxa waay qiso maxallaha aad u xanuun badan aabahan Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed waa Soomaali maxallaha qurbo joog ahaa waxay ka imaadeen wadanka Holland waxaa la hodan wiilkan waxaa la Xasan baan hooyadan the only problem they had waxay isku fahmi waayeen maxallaha ilmahooda meesha ku korsan lahaayeen before that waxaa la lahay gabar baa maxallaha ka xanuunsatay iyadana mental illness kaga dhacay oo isdishay subhanallah ila caruurtan oo caafiyo nafsadooda weysi gabadha markay dhimatay weyneed oo aabaha uu xanaaqay u qaracmay I can understand maxallaha as a mom ilaahay nagu ma keenay as a parent maxallaha ilmahaaga maxallaha qof muslim aad tahay badana qurbaha maxallaha familiyada Soomaaliyeed oo ku dhibaateysmaan especially familiyada oo maxallaha caruurta badan leh that's why aan badana always waiting jiray gaaladan maxay laba cunug u dhalaan 3 cunug u dhalaan wadamada stress ka badan caruur badan markaa haysatidna maxallaha nolosh aad badan kugu adkaanaysa as maxallaha u maqlay videoga aabaha wuxuu sheegay in 9 cunug lahaayeen gabar ay dishay ka geeriyootay oo kala soo cararay maxallaha 8 kaleetay uu Soomaali keenay Hargeysa is a beautiful city I don't know gabadhaas ilaa u naxariistay in Hargeysa lagu koriyo maxallaha Allah waclam wallahi I don't know what was going on in that family and family kaskuma dhex jirin but maxallaha videoga social media wareegaya nanyurkii arag diblow maxallaha videoga idin daaray arag ku fiirsada maxallaha oo wuxuu ka sheekeynaya aabahan socotay falkii ugu dhacay 2 sano ka hor 22kii inanteedii caashay dhimatay waxaan maanta ilaahay nimco igu sugay inaan joogo wadankaygii hooyo magaalada Hargeysa dhamaan caruurtayda ay dhan yihiin ilaahay halka iga soo saaray ayaan ku xamdiyeeyaa maalintan inanteeda meedkeeda ka soo qaaday Holland ee aan ku aasay magaalada Sheekh dib uma aanan noqon maanta ilaahay alxamdulillah ubadkayga gacantay ku jiraan waa ila joogaan waxaan dawladda Soomaaliland iyo Soomaalida kala ka codsanayaa gabadha ilmaha dhashay oo iyadu qurbaha aad u jecel diidayna inay baasaboorada caruurta keento wadankooda ay joogaan diintooda ay bartaan marar badan isku dayeen ku qanciyo dadka ay ka dhalatay aadamadoobana ay ku qancin kari waayeen igana daw saari waayeen maanta waxaan ka codsanayaa madaxda Soomaaliland ugu horeeyo Musabixi waxaan mar labaad baaqu dirayaa inta hoodan cabdi jaamac leeyahay oo leeyahay ubadkaygu maanta wadanka ii joogan haddaad qof islaam tahay marka asxaabta aad ugu xumay wallahi billahi waxyaalaha qaarkood Soomaalida haysato familiyada Soomaaliyeed haysato especially familiyada waaweyn maxallaha reerkaas maxallaha caruurtaas wali tragic weyn ku dhacay walaashoodii weyn haddana aabahoodii hooyadoodii weyn waxaa la hooyadii aabaha way isku weyn gabadha wixii damacdaal ninkeeda inay gubto asagana uu ku dhagaalahay maxallaha daraad wiilka maxallaha isbitaalka la orday wiilka maxallaha gabadha geeriyooday gabadha geeriyootay lahay
ولا على أن حريستو. that was a very very tragic محل situation. aniga badanaa dadka Soomaaliyeed waxaa dhahayaa walaalayaalow maxal ahay counselor-aad sada walaalayaalow ilaahay isku xira masjidka gala wadaadada waxaa loo baahan yahay maxal ahay Soomaaliyeed inay dadku u wacdiyaan familiyada u wacdiyaan badanaa hadda dadka waxa laga soo gala ugu badan waa familiyada markasta arko maxal ahay nin baa naagtiisa dilay wiilkii daraad Soomaali uu xaaskiisa ugu waayo waa ogeen maxal ahay reerkan hadana gabar kale oo adan ninkeeda disho waxay ku dishaa maqlay you know there is so many dhibaatooyin familiyada Soomaalida oo ka dhaxdhacay sanadan dambe ilaahay anaga koriyo daamin dadka inay ka fogaadeen diintii dadku waxay ka fogaadeen alla ka cabsiga umaleeyaa ka fogaadeen because qofka haduu ilaahay ka cabsanayo xuduudyo badan xiraaya jiro iyo waxyaalo badan oo ka fikiraayo gabadhaas walaa ida nasiib badneed xaajigeeda tuuday ilmihiga anaa korsanaa abaay adii iska soo shaqeyso inay iska soo shaqeysateed caruurteed markasta oo umaado aabahood maadaama ula joogo Soomaali waxa waaye maxal lahaay caruurtaada waxa waaye familiyadaada ku ilaalina walaalaha ku ilaalina marka ilaahay noloshooda halkaas ku ekeysiyay u qoray labadooda inay isas ku geeriyoodaan ma dhahay maxay u dhacday laakiin hadda kadib qofka videogan fiirsanahay ama umada Soomaaliyeed waxa ay lahaa ilaahay isku xira adaa gabarta ay fiilnays walaashay ilaahay isku xir dhibaato kasta ku haysato ilaahay ka bixin karo maxal if you need help find help professional help therapy therapy ala aada maxal badanaa dadka Soomaaliyeed waxaan ilaa therapy-ga barta wiilasha Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed hadda noo soo kacay inay mental health ay bartaan dadka sida loo caawiyo maskaxiyan loogu caawiyo dad badan hadda qurbo joogto waxa la ogaaday maskaxda inay maxal lahaayay ay badanaa ka xanuunsadeen la ogaaday anaga we don't know walaa qof kasto labadan qodar biyo iskaga jiraa laba qol saddex qol iskaga jirtaa sidii Soomaali oo kale nolosho ma ahan marka shaqo aadid caruurta kugu buuqaan xaajiga kugu buuqaan maskaxdan waa maskax yar maxal waa isahadlaysa wadankii waxa waaye hadaa isku buuqdido kale waxa aadi kartaa xeebta liida aadi kartaa xeebta berbera aadi kartaa xeebaha Soomaaliya aadi kartaa deriska la sheekaysan kartaa saaxiibadaada nolosha halkaas ma ahan ma fahamtay aad bay nolosha halkaan u adag tahay gaalada ayaga naftirkood maalin kasta way isdilaan hadii la count garay inta magaalada aan Seattle Washington deganahay maalinkii waxa dhimato 50 ruuxa u maleeyaa oo suicide isku disho waa ayaga waxay leeyihiin dad suicide prevention leeyihiin dad badan oo la hadlay leeyihiin taqtariin leeyihiin still ayaga oo sas ula sii dagaaltama umadooda oo wacyi gelinayo caawinayo dhaa please anagana soo wac askariga soo wac dacaan nafsadaada arabti inaad disto groupiye leeyihiin loogu talagalo qofka aniga maanta waa isdil raba u imaanayo la hadlay kaxeenayo nino asaas marka adiga Soomaali ahaayo sirtaada jecelina qarsatid wax kasta inside ka ku haysto ina qarsatid hadii wadan kale oo maxal lahaay bulshadiisa duwanta noloshiisa duwanta lagu keenana aad bay xunta walaa bila aad baa ugu xumaad reerkaas aad baa ugu qiirood maan lahaay ugu xumaad reerkaas dhibaatada ku dhacday masaaka shaqa u socday intaan shaqadeeda aadna walaa waxaan ay 10 minute video gali bal ka hadal reerkaas ma fahantay inta dhimata Allah u naxariisto aabaas iyo hooyadaas Allah u naxariisto gabadhooda yarka geeriyoodan Allah u naxariisto ilmahaas samir iimaan Allah ka siiyo insha Allah waxaan ilaa reerka ilmahaas maxalla ay la joogaan raji agoonta ahna ilaahay oo kasinayeen wanaagsan noqdaan ee maxallaha ilmahaas cadaalad ah way ku koriyaan ee mustaqbalkooda dheer systematic stress disorder baa ku dhacay aabahooda hooyada badii labadooda nafsadooda isku waayeen maxallaha samir iimaan ilmaha Allah ka siiyo جعلت الصومالية حافظت تجيهن المهاس حافظت تجيهن هذا تجنتي المهاس يتقولون هذا إن شاء الله هوي أب ونقطة أمته هوي أب الله وديو هلا سأني كنت يا أصحاب بليز سبسكرايب channel كي قاعد إيش فيديو جديد الحلقة اللي أسكولين على سواء لايكنا إيسي صار إن شاء الله انتبه يوم فيديو كلكم كل مين خير إذا رجينا السلام عليكم.